dowladda Soomaaliya ee dalka Great Britain dhinaca midigta waxaa ka fadhiya xildhibaan dowladda baa ka fadhiya halkaa waxaa fadhiya xogaadad isma yaqaano laakiin maadaama anigu aan systemka energy-ga ka mid ahay hadda waxa waa taqaanaan waa mas-uulka dowladda federaalka Soomaaliya ee dalka Kuwait waa ka hubahay walaasha qaali gudoomiyaha jaaliyadda iyo ambassador Abdishaaq Seekoor oo isagana ku dhex jira martida dhammaan waa islaamaya waxaad ka garan kartaan caawa isku-imaanshaheennaan haddaad diinka mudug iyo Puntland iyo Jubbaland wada socdo iyo Hirshabeelle caawa xafladan wada yimaadeen waxaad ka garan kartaa Soomaaliya intay jidka idin ka soo dhawaatay marka kolay safiirka iga dambayn doona iyo madaxda laakiin mas-uuliyiinta saaran waxay faraysaa waxa weeye hadal Soomaali waxaa jiray ciyaalkeena markay ciyaarayaan tartanka markay galayaan waxay dhihi jireen barbarkay ka dhacda waa bakala qaran marka nin walba oo Soomaali ah waajibaadka ka saaran dib u soo nooleynta qaranimada Soomaaliya oo muddo 33 sano ay dadkeedu la dacdhacayaan colaad iyo isbaandarro iyo abaar waa mas-uuliyad inadoo dhan inoo saaran doorashadii hadda dhacday waa doorashadii saddexaad ee dalka Soomaaliya lagu qabtay gudaheeda marka taas naftirkeeda waxay tahay horumar ugu dambeyn dabeecaha dhinaca shayaala wuxuu si gaara u khuseeyaa jaaliyadda UK waa tabeelahaas gudoomiyaha jaaliyadda qaali iyo kordholaasha ee ka sheega waa tabeele loogu fariinsiga fariintaas oo ah dib u soo nooleynta safaaraddii qaranka Soomaaliya ee dalkan Great Britain waxaan ka codsanayaa marka jaaliyadda inkastoo safiirka uu iga dambayn doono iyo madaxda kaleba geed walbaba in gurtaa hoostaada innaga haddaynu dalkii ka maqan nahay anigu hadda dalka safiirka waxaa iga soo horreeyey marka waan ka imid Soomaaliya waan hadda u dabaaldegayno doorashada madaxweyne xasan sheekh iyo xamse oo prime minister ah waxay ku qanci karaan keliya jaaliyad ahaan doorka aynu ka qaadano dib u soo nooleynta iyo dib u dhiska jaaliyadda safaaradda waxaan codsanayaa marka waa soo gaabinayaa waa mahadsantihiin anoo ku hadlaya waa gaftamayaa markii igu dambaysa London aan ka tegay waxaan ka tegay London anoo jaaliyadda Jubbaland matalaya caawa marka anoo Puntland matalaya Jubbalandna saaxiibkay Cabdirashiid uu matalayo hadda waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa oo jiidis iyo qaadis oo isla gurigeyn waxaan codsanayaa marka taasna inaynu ku wada shaqeyno waana mahadsantihiin jaaliyaddana waxaan ka codsanayaa again and again waa inaynu safaaraddeena dhisano si ay jaaliyaddan dhibaataysan ugu adeegto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsan tahay qaabka aad u tafatirtay iyo qaabka aad u dhigtay iyo sida aad u sharaxday aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa ayuu yaallaa isheeg qofkii kaa ku bixinaya qofkii kaash ku bixinaya waa ka qayb qaado safaaraddaada cusub ee dib loo yimaanaya deegaanka weli waxaan ku jirnaa qaybtii jaaliyadaha waxaan ugu yeerayaa jaaliyadda koonfur galbeed injineer Cabdirasaaq Cumar Sheekh وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله
dhegaysataan erayada iyo hadallada iyo hudbooyinka waa idinka codsanayaa. intaas haddaan intaas uga baxo waxaa mahad iska leh ilaahigii macbuudkaha oo caawa isku qaali keenay meeshan. waxaana mahadda labaad leh jaaliyadda reer UK, jaaliyadda Amar iyo jaaliyadda Jubbaland oo martigelisay arrintan. ayadana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaan kaloo salaamayaa martisharafta safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo dowladda Soomaaliya madaxda ka socota iyo dowlad goboleedyada xildhibaanadooda ka jooga dhammaantood ayagana salaamayaa. bacda salaam waxaan rabaa oo ballaaran